qodobka 25aad ee anshax marinta qareenada waa qodobka ugu muhiimsan ee pointigiisa la rabay in la sii dhameystiro waana ka wada hadalnay gudoomiyaha runtii waa isla fiirinay waana isla garanay in pointigaas ay laga maarmaan tahay in xogaa la soo yaraha qaado laakiin waxaan rabaa si ay u ogaadaan xildhibaanada inta badan maxaa pointigaas muhiim ka dhigay oo pointyada kale muhiim uga dhigin waxaan isla fiirinay qareenada saa la socotaan ma ogiye haddaan aniga iyo Khalid aan ku dacwoono guri laakiin Khalid uu ogyahay guriga aniga aan leeyahay Khalid uu qareen soo qabsado qareenkan uu ogyahay in guriga ma taqaanaa isaga ninka uu salahayn laakiin haddana uu lacagta ka qaadanayo oo shaqada ka qabsanayo oo si lagu kala awood sareeyo ama codkeerta ha noqoto ama si lagu noqoto ama lagu leeyahay bixiyeen loo xukumo hadhowtii qofkii iska lahaa asalka hadii u dhamaatay in loo xukumo qofkii iska lahaa qareenkaas turuufada ku shaqeynayay waadana maanta ay garsoorayaasha inta badan ay ka cabanayaan in ay tahay qareenada oo dhibaato badan ku haya ee soo abaabulaya dad badan oo wax ay habeeraad ku leeyihiin aan jirno ku qarso ku qarimeysida in lagu daro booninta oranayo haddii qareenkaas ay ku cadaato in mataqaanaa maxkamadda ay xukunto in mataqaanaa uusan xukunkaas waxba ka jirno farsata wuxuu la imaado dhan meesha in qareenkaas lagu daro xabsi in xabsi la raaciyo in xabsi la raaciyo qareenka tahay xabsiga مريها وقرين ودونسا قرينك هدي توب يهي وسوقات شقadaas uu ku qabsado gacan ku siiyo ku qabso ku qarimeeyay ku adkaado uu rabo ay ku cadaato oo laga xukumo waxaan qabaa aniga in loo heeliyo masaakiinta maanta ku cadiban dadka banaanka joogo oo inta badan ay moodaan in dhibaato badan ka raacayso oo barxaati ka hayna hada dhacday dhowr arrimood noocaas oo kale ah oo goobjoog ka aha waxaan qabaa qareenkaas in tilaabo laga qaado in noqoto baa in oraa la siiyo ama digniin la siiyo ma in la xiro oo بينهم الوجه وما بعد